tan iyo markii ay soo baxday cabsi la xiriirtay inay fatahaad ku dhufanayso magaalada Beledweyne ayaa ganacsatada deegaanka oo kaashanaya dadka shacabka waxa ay bilaabeen inay biyo xireenno ku sameeyaan meelaha ay biyaha ka soo galaan magaalada Beledweyne. Ganacsatada iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay inay biyo xireen weyn u dhigaan deegaanka Hilikiliyo oo ahaa goobta ugu daran ee biyuhu ay ka soo bixi jireen kuwaasoo barakicin jiray xaafadda Kooshin oo kamid ah xaafadaha ugu waaweyn magaalada Beledweyne. Xaaji Cismaan Dhagaxow Haroor gudoomiyaha Dahabshiil Group gobolka Hiiraan iyo xubno oo horkacayo ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay ku howlanaayeen biyo xireenka laga sameeyo deegaanka Hilikiliyo iyo deegaanada kale ee magaalada Beledweyne. waxa uu faahfaahin ka bixinaya Xaaji Cismaan Dhagaxow Haroor marxaladii kala duwan ay soo mareen biyo xireenkan deegaanka Hilikiliyo iyo deegaanada kale ee magaalada Beledweyne. Hilikiliyo wali joognaa Hilikiliyo waad ogtihiin magaalada Beledweyne culayska ugu weyn oo fatahaada biyaha waxay ahayd Hilikiliyo waxa shaqadeeda la bilaabay 30kii bishii hore ee naga tagtay ilaa bishaan oo maanta 6 ah waxaad moodaa ilaa hal usbuuc la xarbinayay biyahan magaaladuna way degan tahay alxamdulillah ma hadda ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa iska leh waad arkaysaan halkaani waa keli aan hadda bixinay oo biyaha lagu celinayo aad arkaysaan laakiin waxa ka horeeya magaalada meeshii biyuhu ka soo bixi jireen oo ilaa 3 irdooda waa xiran tahay shalay kaliya meelo yar yar oo biyuhu ka baxayaan oo isla xaafadan Hilikiliyo waxa la dhigay dhowr kun oo jawaan 3000 oo wax yar dhiman intaas ilaha yar yar ka way ilaha waa weyn oo muhiimka waxaan dooranay inaan kanaalkan dhigno kanaalkan oo baaxadiisa hadda dheerkiisa aan ku qiyaasayno inuu ilaa 4 kilomitir meelahaas inuu yahay aan qiyaasayno Allahu a'lam laakiin qiyaasteena waa sidaas oo injineerana la jooga Camalow Cali Geedi oo kamid ah ganacsatada magaalada Beledweyne isla markaana si mutadawacnimo u tagay deegaanka Hilikiliyo si uga qayb qaatay biyo xireenka ayaa bulshada Beledweyne u soo jeediyay baaq ku aadan inay ka qayb qaataan biyo xireenka fatahaada webiga Shabeelle ee maalmihii ugu dambeeyay laga sameeyay duleedka magaalada Beledweyne. maantay ilaa isbuuciidan ilaa maalmaha ilaa 10 maalmood la soo dhaaf waxaan ka shaqeynay Hilikiliyo ma sha Allah waa ku guuleysanay xilliga magaalada waa laga qaxi jiray alxamdulillah rabbi ilaahay baa ku mahadsan loo ma kala harin hooyooyinkii waxgaradkii dhalinyaradii ganacsatadii intii dhameed loo ma kala harin waxa dhacday waa celinayna meeshii ku haboon in baala ka shaqeysa baala u direynay meeshii jawaan ku haboon jawaan u direynay waxaan dhigay intaas oo kun oo jawaan hal meel waxaan dhignay 2620 laba jawaan hal meel dhignay meeshii jawaan ku haboon jawaan dhignay meeshii baala ku haboon baalan saarnay meeshii buur ku haboon buuran dhignay marka waxaan ilaahay aas garabsano dhidhiyo dhabarka goda hadhownaan dhabaha dhaqaale sare u dhiga gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali oo booqasho ku tagay deegaanada biyo xireenada laga sameeyay ayaa waxa uu sheegay warbaahinta in shaqo wanaagsan laga qabtay muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanada biyaha laga xiray isagoo ugu baaqay bulshada Beledweyne inay garab istaag u muujiyaan si looga baaqsado barakac mar kale ka dhaco Beledweyne. maantana shaqadii ay qabteen ganacsatada oo xaajiga ugu horeeyo ayaan hadda joognaa runtii Hilikiliyo joognaa magaalada haddii shaqadan ay sajir lahayd bacda Allah subhanahu wa ta'ala magaalada mar hore laga bixi lahay ilaahay wuxuu qadaray shaqadii inta laga qabtay iyo hawsha inta laga qabtay in maanta magaalada lagu joogo waa markii ugu horeysay dadaalo noocan la sameeyo tan iyo markii fatahaadii weyneed ee dabayaqadii sanadkeena ka soo gudubnay ku dhufatay Beledweyne hayeeshee tallaabadan biyaha lagu xirayo ayaa rajo wanaagsan gelisay shacabka magaalada Beledweyne oo inta badan xiliyadan oo kale isaga barakici jiray guryahooda. Maxamed Cismaan Makaran, Universal TV, Beledweyne.